Ma isweydiisay sidii aad u samayn lahayd muuqaalo tayo sare leh, kuwaas oo dad badan ay daawadaan, adigoon xitaa wejigaaga soo muujin? Dad badan ayaa aaminsan in samaynta muuqaaladani ay u baahan tahay kumbuyuutar weyn, qalab qaali ah, iyo aqoon dheeraad ah oo ku saabsan habka wax la isugu dubarido. Laakiin maanta waxaan kuu hayaa sir aad u weyn. Waxaan ku tusi doonaa sidaad adigoo adeegsanaya telefoonkaaga gacanta oo keliya aad ugu samayn lahayd muuqaalo cajiib ah. Waxaan isticmaali doonaa awoodda garaadka macmalka ah si aan shaqada oo dhan u fududayno. Laga soo bilaabo raadinta fikradda, qorista sheekada, samaynta codka, ilaa isku dubaridka ugu dambeeya. Intaas oo dhan waxaan ku samayn doonaa telefoonkeena. Haddii aad xiisaynayso inaad barato xirfaddan, fadlan riix batoonka jeclaanta kanaalkana ku biir si aadan u moogaan casharrada xiga. Aan bilowno. Shaqada ugu horraysa waa inaan helno fikrad iyo qoraal habaysan. Kuma dhibtoon doonno inaan saacado fikirno. Waxaan isticmaalaynaa barnaamijyada caqliga casriga ah sida kuwa shirkadaha waaweyn ay sameeyeen ee su'aalaha laga weydiiyo. Waxaad furaysaa barta internetka ee telefoonkaaga waxaadna weydiinaysaa su'aal cad. Tusaale ahaan waxaan u qoraynaa amar sidaan ah, iigu qor af Soomaali fudud, qoraal muuqaal oo qaadanaya 5 daqiiqo. Muuqaalku ha ka hadlo 3 dariiqo oo loo ilaaliyo caafimaadka indhaha marka la isticmaalayo telefoonka. Qoraalka ha yeesho hordhac, qayb dhexe oo qeexan iyo gabagabo. Sidaad u jeedaan, ilbiriqsiyo gudahood ayuu barnaamijku inoo soo saaray qoraal dheer oo aad u qurux badan, kaas oo soo jiidanaya qofka daawanaya. Marka uu qoraalka inoo soo dhammeeyo, waxaan samaynaynaa inaan soo min guurino qoraalkaas si aan u kaydsano. Hadda waxaan haynaa qisadii muuqaalka, laakiin waxaan u baahannahay qof akhriya. Haddii aadan rabin inaad adigu duubto codkaaga, wax dhib ah ma leh. Waxaan adeegsanaynaa barta internetka ee loogu talagalay in qoraalka loo beddelo cod dabiici ah oo u eg codka bini'aadamka. Waxaad gelaysaa barta internetka waxaadna iska diiwaangelinaysaa si bilaash ah. Markaad gasho, waxaad arkaysaa meel liis ah oo ay ku jiraan codad kala duwan, rag iyo dumar, kuwa waaweyn iyo kuwa dhalinyaro ah. Waad tijaabin kartaa mid walba ilaa aad ka hesho codka kuugu habboon sheekadaada. Markaad doorato codka, waxaad qoraalkii aad horay u soo min guurisay ku dhejinaysaa meesha bannaan. Halkan waxaa ku jirta sir yar, mararka qaar, barnaamijyadan ma yaqaanaan sida saxda ah ee loogu dhawaaqo xarfaha af Soomaaliga qaarkood sida xarfaha culus. Si aad arrintan u xalliso, ereyga uu si qaldan u akhriyo, u qor sida loogu dhawaaqo, tusaale ahaan xarfaha qaar labanlaab. Kadib riix batoonka soo saarista codka. Dhowr ilbiriqsi kadib, codkii ayaa diyaar ah, waxaadna toos ugu soo dejisanaysaa telefoonkaaga. Qaybtii ugu dambaysay waa inaan isku keenno codkii iyo muuqaaladii. Waa inaan helnaa sawirro iyo muuqaalo gaagaaban oo la jaanqaadaya waxa uu codku ka hadlayo. Waxaad isticmaali kartaa barnaamijyada sawirrada ikhtiraacka si aad u soo saarto sawirro cajiib ah adigoo u qoraya keliya waxaad rabto. Markaad soo kaydsato sawirrada, waxaan furaynaa barnaamijka isku dubaridka muuqaalada ee telefoonkaaga ku jira. Tallaabada koowaad, soo geli dhammaan sawirradii iyo muuqaaladii. Tallaabada labaad, hoosta ka saar codkii aan soo diyaarinay. Hadda waxaan samaynaynaa qurxin. Si aan muuqaalku u noqon mid caajis ah, waxaan dhex gelinaynaa isku bedbeddel. Sidoo kale, waxaan dhignaa cod hoose ama muusig aad u deggan oo aan qarinaynin codka qofka hadlayo. Ugu dambayntii, waxaan isticmaalaynaa nidaamka iskiis u soo saara qoraalka. Nidaamkani wuxuu shaashada soo saarayaa erey walba oo uu codku ku dhawaaqayo, taas oo aad u soo jiidata indhaha qofka daawanaya. Markaad hubiso in wax walba ay sax yihiin, riix batoonka kaydinta si uu muuqaalku kuugu soo baxo isagoo dhammaystiran. Sidaas fudud ayaad muuqaal oo dhan ugu samaysay adigoon bixin qarash, islamarkaana aad wakhti badan ku badbaadisay. Tani waa fursad weyn oo aad ku bilaabi karto kanaal cusub, kuna kobcin karto ganacsigaaga ama xirfaddaada. Ma jirto sabab aad dib ugu dhigto. Haddii aad ka heshay muuqaalkan oo uu ku anfacay, fadlan riix batoonka jeclaanta, la wadaag asxaabtaada si ay iyaguna uga faa'iidaystaan. Haddii aad qabto su'aal ku saabsan barnaamijyada aan maanta isticmaalnay, fadlan iigu reeb qaybta fikradaha ee hoose, waan kaaga soo jawaabi doonaa. Ilaa aan ku kulanno casharka xiga, nabadgelyo.